السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لهي ميلو باجوكتين كسر هذا يوتيوب channel كيغا waxaan jeclaystay maanta in aan ka jawaabo su'aal kamid ah su'aalaha ay walaalahayga Soomaaliyeed isoo weydiiyaan taasoo ah haddaad dawlad tihiin haddaad gabdhihii Soomaaliyeed u istaagteen markii aad caawiseen dabadeed ma la idin siiyaa wax uun gacan qabsiya ama jidmar ah ama macnihii hadiyad ah ma heshiin oo gabdhaha Soomaaliyeed ma idin siiyaan su'aashaas run ahaantii su'aal waxay ila noqotay xoogaa maaragtay fani ah anigana waan rabay inaan idin la qaybsado oo aan maaragtay idin la wadaago waxaan rabaa marka in aan idin qeexo annaga haddaan nahay ajaanibta duulooyinka ajaanibta ah gabar kastoo aan raacayno saacad ahaan ayaa wax naloo siiyaa ma ahan shaqo joogto ah ma ahan mushaar joogto ah ma ahan lacag aad ku noolaan kartid xaqiiqdii maxaa yeelay goortii aad raaci doontid gabar dhalaysa ma taqaanid inta gabdhood oo ku soo wici doonaan ma taqaanid sidaa daraadeed wax lagu noolaan karo oo loo fadhin kara ma ahan waa in qofku uu shaqo kala haysto shaqada marka aan gabdhaha aan raacayno waxaa dhici karta bishii hal ama laba inay kugu soo aado ama waxbaba marka sidaa daraadeed gabadhii markaas aad raacday intay ka dhalaysay maxeedii dhan markaa usoo dhamaysid saacadahaaga ayaad isku dardarsanaysaa saacad ahaan ayaa lagu siinayaa wixii aad shaqaysatay waxaana siinaya urur la yiraahdo Fodel Sahusad magaciisa gurigii dhalitaanka haddaan af Soomaali u fasiro micnihii halkaas ayaan ka tirsanahay ayaga ayaa micnihii project ku qaatay in ay la caawiyo dumarka ajaanibta ah oo ay u sameeyeen ajaanib duulooyin ah marka sidaa daraadeed annaga wax micnihii joogto loo fadhin kara ma ahan haddii la doono lacag badanna maba ahanba sideedaba wax saacad lagugu siinayo sidaa daraadeed waxaan gabdhaha Soomaaliyeed wax ma ka heshiin oo ayagu wax ma idin siiyaan ayaan rabaa inaan ka hadlo waxaan rabaa marka 8 sano aan duulada ahaa run ahaantii ma helin hal baatiyan allaha ka dhigay baati maanta waxa ma joogo waa waxa ugu yar marada ugu yar ee maanta la iibsan karo waa baati gabar kastana gurigeeda ayay taalaa haddana saas ay tahay hadda anaga duulanahay runtii iska daa in lacag nala siiyo iyo wax ka weyn ma helna xataa yacni ana ubax ahaan hadda iska hadlo weli gabar aniga aan raacay oo aan yacni cagaha ii bararay ma arkin ayadoo maalin isoo wacday oo tiraahday maanta gurigeyga ayaad ka casuuman tahay maanta gurigeyga ayaad qadada ka leedahay maanta shaah ayaan kuugu talagalay waa inaa ii imaatid ama maalin hebel ayaan ku casuumay xataa ma helin mana arkin run ahaantii waxaa moodaa wax micnihii aan culays la iska saarin wax aan qofkan micnihii inaad maaragtay aad qanacsan tahay inaad maaragtay qofkan abaal u hayso yacni ficil uma tusno dadka waxaan u tusnaa kaliya qalbigan ku haysanaa gabdhaha aan raacay oo dhan kulli say u badan yihiin waa maqsuud yacni weji ahaan iyo farxad ahaan ayay ii tusaan yacni abaalka ay ii hayaan laakiin weli yacni ma arkinin haddaan nahay gabdho Soomaaliyeed oo duulooyina in nala casuumo in yacni ani haddaan iska hadlo gabdhaha kale aniga ma aqaanin laakiin aanay ahaan 8 sano aan ahay weli la ima oran xataa maqaaxiya maanta kugu casuumay ama bariiska gurigeygu ka diyaarsan yahay ama walaalay hoo diracaan oo aan kula jeclaystay marka haddaan isla barbar dhigo gabdhaha carabta ah iyo gabdhaha Soomaalida gabdhaha carabta ah ee la caawiyey ee la raacay ayagu gabdhihii duulada ahaa ee raaceen isla carabtooda ah hadiyad waxay siiyaan dahab ah lacag ay yacni waxay siiyaan waxyaabo waaweyn oo annaga nala tuso naloo sheego katiinada ayaan qoortooda ku aragnaa la leeyahay katiinadan waxa ii keentay gabanaan raacay run ahaantii ani marka waxay igu noqotaa cajiib ayay igu noqotaa macnaha runtii ma dhahay maxay gabar Soomaaliyeed aniga dahab ii siin weyday ama lacag ii siin weyday laakiin macnaha muddo 8 sano ah xataa inaanan arkin qof dhaho maanta qaxwo
ayaa gurigayga ka karsan oo aan kuugu talagalay ma arkin xaqiiqdii marka macnaha xumaan ma raba in la ii qaato laakiin waxaan rabaa inaan yacni aan idinla wadaago inaanan ahayn bulsho ku fiican hadiyadda bulsho hadiyadda meeshii loogu talagalay ku bixiya ma nihin hadiyadda waan bixinaa haddaan Soomaali nahay balse waxaan u bixinaa in la arko mararka qaarkood marar badan ayaa hadiyadaha waxaa lagu bixiyaa meelo khalad aniga aan isleeyahay yacni meelo badan oo ku habboonaan lahaa ayaan lagu bixinin qofka aan hadlin qofka aan wax ku weydiisanin qofka miskiinka ee faqiirka ah ee aan qaylinin qofka micnihii waxyaabahaas waa dadka la ilaawo waa dadka bulshada aan xilka iska saarin ninka lacagta leh ayaa lacag loogu daraa xafladaha dadka aada ayaa xaflada loo dhigaa dadka micnihii hadda aniga ubax ahaan waxaa dhacdo marar badan gabdhihii aniga aan raacay xaflado oo iyaga qabsanayaan inaan lagaa casuumin iska daa in lacag iyo dhar lagugu talagalay lagu siiyo runtii xaqiiqdii macnaha aniga malihi maxaa la ii casuumi waayey laakiin waa waxaan arko inay samaynayaan in dad gooniya la iska dhiso balse dadkii qaarkeed ayaamo saacado badan laguhu kuu bararayay la ilaawo oo aan haba yaraatee aan la xasuusanin xasuusta macnaha ma ahan keliya dhoolla caddaynta ma aniga xataa ahaan lahaa gabar ii taagan wax ka badan ayaan siin lahaa xaqiiqdii naftayda waxaan la jeclahaa ayaan iyada la jeclaan lahaa shay mara la ii keenay ama mara aan soo iibsaday ayaan dhihi lahaa iyaday ku qurux badan tahay runtii marka abaayooyin uguma ciil qaba runtii mana ihi gabar micnihii damacda dadka kaleeto xoolahooda mana qaateen haddii maanta iisoo taagi lahayd shilin xataa ma ka qaateen balse waxaan rabaa in aan muddadaas 8 sano ah aan waayay hal gabar oo Soomaaliyeed oo i tiraahda maanta gurigayga waa inaa imaatid oo aan yacni ku tuso sida aan micnihii aan maqsuud u ahay sida aan rabo inaan kuugu mahad celiyo weli xaqiiqdii ma arkin mana ka fadhiyay runtii inaan helana ma rabo balse markii aan arko carabta say hadiyadaha isku siinayaan say dahabka u bixinayaan annaga kuweena waxaa isdhahayaa macnaha maxaa dhacay inkastoo aanan rabin in hadiyad la ii gado inkastoo aanan rabin in lacag la isiiyo inkastoo aanan rabin dhar qof walba gurigiisa dhar ka buuxo haddana saasoo ay tahay yacni aniga gabar ii taagnayd intaasoo saacadood siday doonto ha noqotee si ayaan ku tusi lahaa in aan maaragtay abaalkeeda gudi karinin marka mararka qaarkood haddaan Soomaali nahay waxaad arkaysaa dad yacni ka fikirayo lacagta xunta ah ee saacad keliya ama 2 saacadood lagugu baygaraynayo dad ka fikirayo oo dhahayo anaa lacag igu qaadanay naagtaas lacag igu qaadatay macnaha waxaa arkay dad noocaas u fikiraya ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dad xumaan kaa faafinaya adigii gabdhaha Soomaaliyeed u taagnaa mararka qaarkood suuqa kuu gelinaya jaajuus inaad tahay mararka qaarkood suuqa kuu gelinaya inaad xamato oo gadaashooda aad ka hadasho oo wixii foosha ka dhex dhacay ayayba yacni xumaan intay ka gaareen inay quluubtooda jiran yihiin waxaad arkaysaa naagaadan weligaa arag oo aadan salaamin oo aadan raacin markii dhalaysay ay cararaysay si aadan lacag ugu cuninin ayaad waxaad arkaysaa ayadii oo xumaan kaa faafinaysa oo kuleh naagtaas heblaaye ah ee duulada ah gabdhaha ay raacdo ayay ka sheekaysaa ayadoo rabta inay gabdhihii kale kaa dirto oo aysan ku soo wacanin oo ay cararaan heerkaas ayaan gaarnay heerkaas ayay quluubta kulli ma dhahayo dad badan oo fiican ayaa jiro laakiin 1 iyo 2 iyo waa laga helayaa dad yacni saas maskaxdooda u shaqayso qofka saas kuleh waa qof kaa cararay oo micnihii aadan weligaa duulo u noqon aadan weligaa biyo isla cabin inaan weligaa meel ku sheekaysan ayaa qabyaalad iyo qurun qalbigiisa ku jira
ayuu dadkii kale xumaan u tusayaa maxaa yeelay wuxuu rabaa in qof walba keligiis kusoo silco isbitaalka oo kusoo dhalo marka sidaa daraaddeed inta wanaagsan ayaa nagu badan alxamdulilah kulli gabdhaha aan raacay waan isku fiicannahay balse wax gooniya oo ay gabdhahana siiyaan haba yaraatee ma jirto caawinta la caawinayo ayaga shilin kuma bixiyaan ayaga waxay u tahay lacag la-aan ayay u tahay annaga meel kale ayaa nala ka siiyaa balse ma ahan wax badan annaga ayaa jecel inaan caawino oo u istaagno gabdhihii soomaaliyeed ma ahan waxaan ka fakerayno gabadh aan lacag ku cun gabadh aan lacag ku qaado xaqiiqdii ma ahan aniga qorshahayga mana raba inaan saa u fakero waxaan qabanaya ayaa ka tiro badan marka hadal badan haan ma buuxsho abaayadii su-aasha isoo weydiisa waxaan rabaa inaan dhaho abaayo muddadaa 8 sano ah hal shilin oo gabar soomaaliyeed ay isiisay oo ay tiri hoo shilinkan maanta biyo ku cab runtii ma jirto mana xasuusto xaqiiqdii mana ka xumi maxaa yeelay aniga hawsheeda ayaan gudanayay maxaa yeelay aniga intaasaa farxad ii ah aan arkayo cunug yara oo ifka yimid haddaan awoodo oo markaas firaaqo leeyahay waan raacaa alxamdulilah anoona ka fakeraynin maanta waxa kusoo siiso anoon ka fakeraynin maantay ha kuu abaalguddo ha kuu mahad celiso marka hadal badan haan buuxsho waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullah haddana isbitaalka ayaan usii socdaa abaayaa ii dhali doonto ii soo duceeya insha allahu tacaala in iyadana ilaahay u dhib yareeyo annagana ilaahay noo dhib yareeyo waxaan kaloo rabaa inaa noo soo ducaysiin abaayooyin ii soo qoray qoraallo ay dhaheen walaalay waa dhali rabnaa waxaan rabnaa inaa noo soo ducaysid walaalayaalow idinkana iila soo duceeya abaayooyinkaas jasaaka allahu khayran